iyo calamo qoyan loo ruuxay maadaama la sheegay inay ku guulaysteen gacan ku dhigidda magaaladan oo markii horeba ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda Ukraine. ciidankan lagu naanayso manaxayaasha ayaa sidoo kale ka dagaalamaya furimaha hore ee gobolka Donbass waxaana lagu waramayaa inay isaga soo horjeedaan ciidamada dowladda Ukraine in ay gacanta ku dhigaan magaaladaasi iyo magaalooyin kale. dabayaaqadii bishii February markii uu bilowday dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine si aad waxa uu soo shacbaxay magaca kooxdan oo horey loogu yaqaanay Fast Cyber Tangi Battalion Somalia mana jiro qof Soomaali ah oo guutadan ku jira balse waxa ay go'aansadeen inay qaataan magacaas. mid ka mid ah waxyaabaha la yaabka leh ee taliyaha kooxdan uu lahayn jiray waxaa qayb ka mid ah in magaca Soomaaliya uu ku xushay sida uu sheegay in ciidankiisa ay yihiin kuwa aan cabsan oo geesiyaal ah sida Soomaalida oo kale waana taas sababta magacan ugu baxay ciidankan waxaana sidaasi hore u sheegay taliyihii guutadan sanadkii 2017 lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Donetsk. dowladda Ukraine ayaa horey uga hadashay guutada Soomaaliya waxaana ku tilmaamtay inay yihiin koox aad u adag oo cadow ku ah dalkooda inkastoo dhammaantood ay yihiin dad u dhashay dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaa weli wada dagaalka ka dhanka dowladda Ukraine oo hadda socda in ka badan 2 bilood. magaalada Mariupolna weli waxaa la sheegayaa inay ka socdaan dad kuraynta dadka rayidka ah. sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtida